maanta waddankan aynu ku dhaqannahay macaasi badan oo aynu dunida ka maqli jirnay ama qaar badan oo inaga midina aanay maqalba dadka waaweyn oo dhammi ay la yaabi doonaan waddankeenna maalinba nooc cusub baa imanaya waxay ii sheegeen dad dhalinyaroo ka shaqeeya maxkamaduhu kiisaska ugu badan ee la keenaa inay ka mid yihiin dad diinta ka baxay oo ridoobay oo islaamnimadiiba iskaga tegey oo aan baqanayn oo kooxa ah oo rag iyo dumarba leh oo faamiliya ah oo weliba gaalnimada ducaad ku ah ku baaqaya oo la islaamka waan ka baxay bixorriyatii baan kaga baxay waynu maqli jirnay uun dad baa diintoodii ka tegay ama gagaaloobay innagoo arkayna oo maqlayna inoogu timid waddankeenna waxaa ka mid ah dembiyada ugu badan ee la keeno hadda dhowaanahan dambe oo dhan liwaadka amar ninka nin u tegaya ficilkii qowmu luut ayaa hargeysa ka jira waynagii maqlinay maxkamadaha qaarda inay xukumeen qaarkood oo 10 sano ay ku xukumeen sidaa daraaddeed waa macsiyo iyo xumaan inagu cusub amaba aynu la yaabi doonno waqtiyada hore laakiin waxaa iman doontaa haddaan laga hortegin oo aan la isaga digin oo aan la isu caddayn oo aan dadka loogu baaqin wanaagga sharkana looga digin waxaa iman doonta maalin lala qabsado oo aan wax weyn loo arag ayaa iman doonta kuwii marka gabadh la kubsado hay-adihiina wareerin jiray ee buuqoodiyo qayladooda aan laga fadhiyi jirin maylan islaamnimo iyo inay hablaheennu wanaagsanaadaan uma qaylinayaan maxay uga qaylin waayeen qowmuluudnimada maxaa kuwan liwaadka lagu soo qabtay maxkamadaha la hor keenayo ee babliga loo sheegaya ay uga hadli waayeen limaada ninku miyaanu xaq lahayn isagu ma dumarkuunbaa xuquuq leh waa fasaad bulshadeenna in badan oo ka mid in ay u rixinayso amaba ay u dhega nugushahayba waxay nagu soo kordhaya dadka dibadaha ka imanaya faraha badan le qaar badan oo ka mid ihi afkaar bay xambaarsan yihiin aan la mahadin doonin cidhibteeda iyo caaqibadeeda aan la mahadin doonin ayay xambaarsan yihiin haddaan laga digin oo dadka aan dhawaaq dheer loogu sheegin oo dowlad iyo shicibba aan laga kicin fadhigana guryaheenna ayuu daadku inoogu soo geli doonaa guryaheenna waxay sheegtay inan ka mida shaqo qaranta hablihii shaqo qaran ee waxa weeye ka soo baxay jaamacadaha oo maxkamadaha dadka ka shaqeeya ahay waxay ii sheegtay inay markaa la keeno maxkamadaha la keeno maxkamadaheena la keeno gaar ahaan hargeysa rag le afar nin oo isqaba nin le 4 ba anaa qaba sidii naagihii 4 ba anaa qaba xaasas qowmuluud ah wax ka hadlaya iyo wax ka qaylaya midna ma jiro waxaa laga yaabaa garsooraha la hor keenaa inuu idhaahdo xukuna qodob aan ku xukumoba ma hayo war qodobkiisu waa dil uqtulu lfaacila walmafcuul ka lagu sameeyey iyo ka sameeyey labadaba waa la dilaya culamada islaamku waxay dhahan weliba dilka ugu fool xun dil ayaa la dilaya fuqahada qaar waxay fatwoodaan culamada qaarkood fuqahadu buurta buur ugu dheer inta la saaro in laga soo tuurayo sida tiyuubka si ay hawada ugu soo qarxaan oo isagoo xataa hilibkiisa dhulka laga ururinayo xataa dil caadi oo raaxa leh aan la dilay qowmu luut maxaa lagu haligay sida loo halaagay cid loo halaagay ma jirto dhulkaa lala jaray siday u dhammaayeen samaa dunyaha lagu dhoweeyey markaasaa la soo fororiyey fajacalnaa caaliyaha saafilaha baa ilahi subxaana wa tacaala waxaanu ka yeelnay qaybteedii sane hoostaanu marinay xaggeedii hoosena hoos dusha ayaanu soo marinay malaku jibriil calayhi salaam ayaa garab garbihiisa ka mida geliyey dhulka dabeedna intay ku fadhiyeenba waa la fujiyey ilaa samaa dunyaha malaa'igtii joogtay dhawaaqa diigga iyo codka diigga ay maqlayeen waa la soo foororiyey dabeedna dhulka ayaa ka daba yimid xabaal kale looma doonin waa qowmu luuta maxaa yeelay waxay sameeyeen faaxisha sida nebi luud uu ku wacdiyey maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin cid alla cid idinka horraysay waxaanay jirin baad la timaadeen buuri inakum lata'tuuna rijaala shahwa min duuni nisa ma rag baa wax weydiinaysaan dumar sakadii ya markay faaxishadu halkaa gaadho zina waa laga yaabaa ruuxa in la yidhaahdo
warhanna u geysay shaydaan baa ku duubsaday gabadha iyo ninkaas ku duubsaday war bal nin u tagaya oo waliba ku faanayo ummadda hortoodii oo la anaa qaba balka warra billahi calaykum barina naagna qabta ka eg dabeedna waxay noqonaysaa silsiladaa socota qaar baa laga yaabaa markii inay la soo boodaan dunida gaalada qaar baaba sharcigooda ku jirtaa kuwa maxaa loo halaago waayey inta inaga layna halaagayo ruuxa ilaahay islaamnimo iyo iimaan uu siiyo haddii islaamnimada iyo nicmadii alla uu siiyo uu ka kufriyo uu ka cadaab xun yahay ka gaalka asliga ah sida ninka ridoobaya xukunkiisu dil u yahay isla marka la qabto gaalka gaal isagoo gaal baa tahay halkaa isagoo iska taagan loo dili maayo sabab kale uu la yimaado mooyaane laakiin murtadka murtadnimaa loo dilaya waad ridowda keliya baa ugu filan dil man badala diinahu faqtuluuh buu nabigu yihi ninka diintiisa bedela dila kuwa garsoorayaashaana waxaan leeyahay haddaydaan qodob u haynin ilaahay baa idiin sheegay qodobkaad ku xukumaysaan man badala diinahu faqtuluuh murtadka diintiisa bedela dila ninka qoomuluudka faacilka sameeyey iyo ka lagu sameeyey labadabana waa la dilaya ma qaar qodob loo daydaya kuwan oo kale shareecada bayaan bay ku yihiin bayaan haddii kale garsooraha ka meermeeraya iyo wadaadka ka aamusan iyo ganacsadaha daawanaya intaa midna badbaadi maayo abadan waayo haddii ilaahay ciqaabkiisa uu keeno kii dulmiga sameeyey iyo kii aan samaynba wada camimaya wattaquu fitna laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa war iska ilaaliya fitno iyo dulmi aan ciqaabkiisu ku dhici doonin keliya kii sameeyey ba ilahi yihi subxaana wa tacaala nabiguna wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam wanaagga waa idin isfari xumahana waa idin iska reebi ama ilaahay ciqaabkiisuu keeni doonaa markaasaa rabbi baryi doontaan markaasaa laydinka aqbali waayi doonaa maanta karoonaa jira abaaraa jira macishad barar baa jira dhib badan baa jirta miyi iyo magaalaba macsiyadanaa keentay haddaynu waxaa aynu sheegayne ka sii xun kabaa'irtan waaweyn kabaa'ir dunuub iyo gaalnimo haddaynu ku darsano diintii ka baxayaan dhallinyaradeenni waxaynu sugnaa waa ciqaab walaalayaal ilahay waa facaal limaa yuriid waxaynu maqli jirnay dowlad heblaaye waxay samaysatay gantaal qaaradaha ka gudba war ilahay wuxuu soo diray bacterian cidiba arkayn oo 5 qaaradood ee dunida 6 qaaradood ee dunida isaga gudubtay oo nin inuu ku soo socdo iyo inuu hayo iyo inuu u soo jiro midnaba aan garanay ku weyn iyo ku yar hadda waa tag of virus makhluuqaadka alle ku ugu daciifsanaa ayaynu iska celin karlaan waa ku ugu daciifsanaa ya haddii ilaahay ciqaabka waaweyn ugu salida balka waran ya tarab tarab baa loogu dhimanaya dunida tarab tarab وعبرة مركز أيضا حكين إلهي وقلنا لهين إنه ربي بري لهين إما ضحي الشعب إلهي وتوبت كان لهين أيين الدين تيو إلهنا الله قوم الله دين ما فعل كود الله إيماننا وزنده حركها قوسطي وكبسه حركها قوسطي وردد يدين دين كبيحي ويا شيء ما الله بالله كيني محكمة ده إذا ذكرت ذا الكيني إلهي سبحانه وتعالى عن كيابنا ولا لها محكمة ده فردية قضاء قرصورياش أنا وحن إلهي درادي أفريا إلهي درادي إن إلهي الدين تسويه ليان سيجونا قلنا بدقلان دد كودنا وبد باديان دل كودنا وبد باديان يجونا إلهي أكتيسا يقول بد بادان والشريعة الإسلام كأي كحكمان أو عسكران إلهي كتابك سبحانه وتعالى رفع الله قاعدا كريم أي كتابك إلهي lawyer loo qabsan kari maayo kitaabka alle muran la gelin kari maayo ka ku xukumaan nabad galaya ka lagu xukumina uu nabad galaya waa diin mutakaamil ma inaga u baahan ba qodobo iyo in caynka la yiraahdo kuwan baarlamaanka fadhiyana waxa leey waxyaalaha kale waa taqeeladina laga fadhiyo waayo marka la idin hor keenee war qoomuluudnimadan iyo zinadan xukun ka soo saar iyo gaalnimadan xarkaha goosatay ee dalkeena iyo dadkeena barogaysa kasoo saaro ilaahay wuxuu idinku naxariisto subhanahu wa ta'ala kasoo saara oo dadkiinu u aayaan oo dalkiinu u aayo oo diintiinu u aaydo oo ilaahay agtiisa ku nabad gashaan subhanahu wa ta'ala اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضنك والجوع والعطش ما لا نشكو إلا إليك. اللهم إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ودمار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق رئيسنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وهيئ له بطانة صالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله محكما بشريعتك يا ذا الجلال والإكرام واجعله لأوليائك نصيرا وعلى أعدائك سيفا شهيرا يا رب العالمين. اللهم أقم شريعتك على عبادك في أرضك يا ذا الجلال والإكرام.